deeqdani hilibka ahi oo ay soo gaarsiisay hay'adda khayriga ah ee Jamciyatu Fujairiyya Al-Khayriyya oo ka dhisan dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa loogu qaybiyay 320 qoys oo danyar ah kuwaasi oo ku noolaa kaamka ku yaala xaafadda Koosaar ee magaalada Burco waxaana ugu horeynba goobtani lagu qaybinayay deeqda hilibka ahi ka hadlay Ibrahim Macalin Shukri oo ku hadlayay afka hay'adda wadaniga ah ee Somtarag DC oo fulinaysay deeqdani isagoona u mahadnaqay muxsiniintii soo dhiibtay deeqdani hilibka ahi يطيب لنا في هيئة Somtarag لتطوير الإنسان بأننا ونيابة عن أهل أرض الصومال أن نتقدم بأطيب التهاني والتبريكات لجمعية الفجيرة الخيرية وذلك بمناسبة العيد الأضحى المبارك عادها الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات وبهذه المناسبة نشكر عونكم ودعمكم الإنساني لأهل أرض الصومال ولكم جزيل الشكر والتقدير gudoomiyaha xaafadda Koosaar Maxamed Axmed Hirad iyo isuduwaha wasaaradda qorsheynta qaranka ee gobolka Togdheer Maxamed Cabdi Carab ayaa iyaguna ka mahadnaqay deeqdani ay walaalahooda Al-Fujayra Al-Khayriyya ay ugu soo tabaruceen dadka baahan ee ku nool xaafadda Koosaar ee magaalada Burco deeqda wanaagsan ee ay soo bixiyeen waana laga gudoomiyaha xaafaduna uu joogaa maxaa isaga ka gudoomi doona anaguna maqraati waxaanu ka nahay u dhacday si wacan oo farxad leh oo dadka wixii la gaarsiin karay Ilaahay baa gaarsiiyay intii la gaarsiin karay la gaarsiiyay hay'addan Somtarag ma aha deeqdii koobaad ee ay maanta soo gaarsiisay afuradii Rabadaantii ina dhaaftay iyo ciidal axdadan oo ah tii deeqdii labaad oo maanta soo gaadhay runtii aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa waxaanu leenahay soo kordhiya maadaama aad tihiin dadkii Ilaahay wax siiyay dadkan baahan ee aw keenteen runtii aad iyo aad bay runtii idinka mahad celinayaan waanay ku faraxsan yihiin wixii la siiyabana way qaadanayaan balse waxaanu leenahay maadaama aad tihiin hay'adda khayriya oo Ilaahayna hanti siiyay dadkan muslimka ah ee walaaladiina ee ugu deeqdan maanta aad soo gaarsiiseen oo si wanaagsan idinka mahad celinaya waxaanu leenahay u soo biisa u soo kordhiya aad iyo aad ba ugu mahadsantihiin anana waanu idinka gudoonay deeqda noo soo dhibteen cidii ay soo dhibteenna wayna soo gaarsiiyeen ayaan le Cabdullaahi Jaamac warbaahinta caalamiga ee SBC magaalada Burco.